بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada ma dhaba in gantaalada Iran ay soo saareen nuglaanta saldhigyada military ee Mareykanku uu ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe. Iran ayaa intii uu socday iska horimaadadani waxa ay duqeysay ugu yaraan 7 wadan oo ku yaala gobolka Bariga Dhexe kuwaasi oo si xun ay u beegsanayso saldhigyada militariga iyo xarumaha xasaasiga ee Mareykanku uu ku leeyahay wadamadaasi. duqeynta xooggeeda waxay ku dhacday wadamada Bahrain, Kuwait iyo Jordan. Inkastoo duqeymo kale ay jireen oo Iran ay ku qaaday wadamada Imaaraadka Carabta, Qatar, Sacuudiga, Oman iyo Syria. Sidoo kale Iraq ayaa ka mid ah meelaha la beegsaday. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku andacoonaya in Iran awoodeeda xagga gantaalada iyo diyaaradaha droniska si xun loo baabi'iyay. Laakiin qobarada Mareykanka iyo kuwa kale waxay isweydiinayaan maxaa duqeynaya saldhigyada militariga ma shaydaanba mise waa jin. waxaana soo baxaya in awoodda Iran weli ay dhisan tahay. qaar ka mid ah askarta Mareykanka ee saldhigyadaasi ku sugnaa iyo khubarada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya arrintan. waxaana Iiraaniyiintu ay ku doodayaan cidda dayacan ee saldhigyada banaanka ay yaalin inay yihiin Mareykanka, iyaguna sida ay ku doodayaan qalabkooda militariga iyo saldhigyadooduba ay yihiin kuwa ku hoos jira buuraha ama dhulka hoostiisa oo ay adag tahay in la beegsado. warbixintan si gaar ah waxaynu u eegaynaa sida gantaalada Iran dukun daakan ay uga dhigeen saldhigyada militariga ee gobolka Bariga Dhexe. Maxamed Maxamuud Cabdi ayaa soo akhriyay macluumaadkan. Maxamed, maxay ku bilaabatay warbixintu? isku horimaadka military ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran ayaa natiijada ka dhalatay waxay tahay 4 Mareykan ay dhintaan oo dhammaantood ka tirsan nidaamka difaaca cirka. natiijadana waxa ay ka dhalatay gantaalo ballistikada iyo diyaarado droonisa oo lagu weeraray saldhigyada Mareykanka oo ku lahaa Jordan iyo Iraq. khasaarahan ayaa imaanaya iyadoo isbedel weyn uu ku imaanayo dabeecadii dagaalka ee gobolka Bariga Dhexe si kale loo dhigo sidii uu Mareykanku u dagaalami jiray. cadaadis xoog leh ayaa nidaamka difaaca cirka ee Mareykanka lagu hayaa iyo agabkiisa military ee yaala xeryaha militariga. halka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu tilmaamayo in ciidamadiisu ay aad isugu halaynayaan nidaamka difaaca cirka oo laga keenay wadamo kale sidoo hadal ku dhigay. waa gartay. maxaa loola jeedaa xaaladda dagaalka way isbedeshay ama dagaalkii la yaqiin? dagaalkan waa ka duwan yahay dagaalkii uu Mareykanku dhaqan ka dhigtay 30 sano la soo dhaafay uu ka galay Iraq iyo Afghanistan oo inta badan khatarta ciidamada Mareykanku ku imaan jirtay ahayd ciidanka lugta ku maraya magaalooyinka iyo baabuurtooda kolonyada ah. intooda badanna waxyeelada waxay gaari jirtay xubno ka tirsan askarta difaaca. hadda ciidan lug ku soconaya dhulka Iran ma jiro. ciidamadan waxay ku dhinteen xeryaha militariga ee Mareykanka oo 100 mayl u jira wadanka Iran oo uu dagaal ka socdo. ilaa intii dagaalku uu bilowday dabayaaqadii bishii February, Iran waxa ay soo riday gantaalo fara badan oo qiyaasta Mareykanku uu qaba ay tahay 8,000 ilaa 5,000 oo gantaalo iyo diyaarado drones ah oo bartilmaameedkooda u ahaa wadamada gobolka Bariga Dhexe agabka military iyo saldhigyada Mareykanku ku lahaa sida laga soo xiganayo wargeyska Washington Post oo kamid ah wargeysyada ugu afadheer dalka Mareykanka. marka laga gudbo tilaabooyinka uu isku difaacayo Mareykanku uu qaaday ilaa iyo gantaaladaas qaar kamid ah ayaa ka disay nidaamka difaaca cirka ee Mareykanka iyo xulafadiisa. saraakiisha militariga arrimahan og sarkaal kamid ah ayaa waxa uu sheegayaa tirada gantaalada laga hortegayo in ay yihiin kuwo sidii hore ka duwan oo gantaalo badan ayaa dusaya. askarigan ama sarkaalkan magaciisa inuu sheego waa diiday sida wargeyska Washington Post oo hadal ku dhigay. waa gartay. waa yahay maxamed, haddii dhinac kale ka eegno askariga marka laga tago qobarada Mareykanka arrintan maxay ka yiraahdeen? nin hore uga tirsanaan jiray ciidamada militariga ee Mareykanka oo howlgab ka noqday Brad Bowman yiraahdo haddana ah
agaasimo sare oo ka tirsan maxadka difaaca dimuqraadiyadda ayaa sheegaya in isbeddelka uu cadaadis badan saarayo militariga Maraykanka gaar ahaan ciidanka Maraykanka u qaabilsan difaaca xagga cirka oo haddii aynan si dhaqso ah xeeladooda u bedelin. Bowman ayaa hoosta ka xariiqaya in ciidamadani ay mas-uuliyadooda tahay in ay agabka difaaca iyo gantaalada ay ridaan. Inta badanna waxa weeye cag ma dhigaan goob lagu dagaalamayo, laakiin dagaalkii iyo qaabkiisii iyo dabeecadiisa ayaa isbedeshay. ciidamadan ma ahayn inay dagaalka ku hobtaan mas-uuliyadda saaran aawadeed iyo sida loo beegsanayo ayaa isbedel weyn ku yimid. gantaalada iyo diyaaradaha droniska lala beegsanaya ayaa caqabad weyn ku ah ciidanka difaaca inay ogaadaan ama soo ridaan. waxaa ayadana door weyn ka qaatay in diyaaradahani ay yihiin kuwo madax bannaan droniska ah oo ayadoo ku dul taagan baa la arkayaa, waxaa la kaashanayaa caqliga samayska. diyaaradahana diyaarada raqiisa oo aad wax badan loo soo saari karo. weerarka markay soo qaadayaan xaddi fara badan ayaa soo qaadaya. gantaalada difaacana waxaa weeye in la rido iyo in laga shaqeeyo waa hawl aad iyo aad u dhib badan. Maraykanku marka meel uunan filayn ayay hawshu dagaalka ay isu bedeshay. waa gartay arrin kale oo waxaa aad loo hadal hayaa hadallo ka soo yeeraya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo iskhilaafsan, qaarkoodna oo u dhigayaba in saldhigyada Maraykanka ay difaacayeen ciidamo kale iyo dowlado kale oo aan ahayn Maraykan. sidee looga hadlay arrintaas? dhanka siyaasadda marka fiiriyo madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump ayaa hadallo buuq weyn dhaliyey ayuu jeediyey oo dabeecadda dagaalka difaaca sida loo maamulayo. hadalka sida madaxweynaha u dhigayo dalalka kale ee isku hadlaynaya wuxuu ka hadlayaa wadamada ay martida u yihiin oo saldhigyadooda militari ku yaalaan sida Kuwait, Bahrain iyo Qatar oo isku dayaya in gantaalada Iiraan laga soo ridayo diyaaradaha droniska inay difaacaan. hase ahaatee maalayn la xaaladahan ayaa su'aalo badan keenay oo la xiriira amniga kaabayaasha saldhigyada militariga ee Maraykanku ku leeyahay bariga dhexe. kaabayaashaas ayaa inta badan loogu talagalay ama loo naqshadeeyey in ciidamada Maraykanka aanan la soo weerarin. hase ahaatee xaaladii dagaalka ayaa isbedeshay. uma adkaysan karaan baa la yidhi gantaallo kusoo dhaca sida sarkaal ka tirsan militariga Maraykanka oo arrimahan ogsoon uu ka warbixiyey dagaaladii hore oo Ciraaq iyo Afghanistan. dagaalku waxaa inta badan ka dhici jiray wadamada gudahooda. hadda laakiin dagaalku wuxuu noqday mid goboleed, waxaana loo baahan yahay in si fiican ciidankeena loo difaaco siduu hadalku dhigay. waa gartay macnaheedu waxa ula jeedaa marka dad ay ku difaacayaan saldhigyadaada waxaanoo kala imaanaya khasaarahan iyo dhimashadan. waa gartay maxaa ka jira wararka sheegaya in ciidamada laga saaray saldhigyada qaarkood inta dagaalka uusan qarxin? dagaalka Iiraan intaan la gelin ka hor wasaaradda dagaalka ee waddanka Maraykanka Pentagon loo yaqaano ciidamo badan oo Maraykana ayay saldhigyadii militariga ka saartay iyadoo filaysay in Iiraan ay tallaabooyin argudasho ah ku qaadi doonto kaabayaasha militariga iyo saldhigyada militariga gobolka bariga dhexe ku yaala. Iiraan jawaabteeda ayaa noqotay mid aad u ballaaran. goobo badan ayay duqeysay iyo goobo rayida, waxayna khatar gelinaysaa waddan walba oo marti gelinaya howlgallada ciidamada Maraykanka. waxaana muuqata in Maraykanku uu ciidamadiisa meelo kala geystay. waa gartay waa yahay maxaa si gaar ah uga dhigaya duqeynta inay si xooggan ugu dhacayso waa duqeynta Iiraan wadamada Kuwait iyo Jordan? nishaabka waxa uu saaran yahay falcelinta waddanka Iiraan ciidamada Maraykanka ee ku sugan Kuwait iyo Jordan oo saldhigyo badan uu Maraykanku leeyahay oo baahsan. dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey Iiraan waxay bartilmaameedsatay Urdun oo duqeyntu ay ku badan tahay sida laga soo xiganayo saraakiisha Maraykanka. waxaa yeelay dowladda Maraykanka ayaa waxa ay geysay diyaarado dheeraada halkaasi
sida wargeyska Washington Post uu qorayo. Jordan askarta dhimatay halkaas ayay ka howlgalayeen. waxaana muuqata in saldhigyada militariga qaabkay u dhisan yihiin ay yihiin kuwo ka samaysan tarniigyo iyo agab la isku xirxiray. inta badanna nidaamka difaaca loogu talagalay in gantaalada lagu soo rido sida Patriot oo kale iyo oo loogu talagalay gantaalada dheer inuu ka hortago iyo noocan laserka la yiraahdo iyo ayaa goobtaasi ku sugnaa. Iiraanna duqeynta aad ay ugu badisay, sidoo kale waxay aad u duqeynaysaa Kuwait oo ayadana saldhigyo military oo badan ay ku yaalaan, waxyaalo badanna ay u geysatay saldhigyadii Mareykanku halkaas ku lahaa. waa gartay saldhigyada marka muddo intee la-eg ayay ku yaaleen wadamadan hadda ay sida xun Iiraan u duqeynayso? Mareykanka markii uu gantaaladii kale ka quustay ayuu gantaal qadiim ah oo 40 sano ka hor la sameeyey oo Avenger la yiraahdo ayuu howlgeliyey si diyaaradaha droniska uga hortago oo markii hore loogu talagalay in lagula dagaalamo diyaaradaha helicopterska. militariga Mareykanka waxaa lagu qasbay in uu dib u soo celiyo gantaalada noocaasa oo droniska uu kula dagaalamo maadaama gantaalada iyo diyaaradaha droniska ay khatar weyn ay ku yihiin kaabayaasha militariga ee waddanka Mareykanka. askari la geeyey xerada militariga ee Jordan ku taala ayaa Washington Post u sheegay in dhismayaasha ay ka samaysan yihiin tabniigyo iyo wax la isku xirxiray, awoodna u lahayn inay gantaalo iyo diyaaradaha dronisa iska xamilaan. xataa dhismayaasha cusub ee dowladda Mareykanku ay dhowaan dhistay oo darbiyada adag ah iskama difaaci karaan gantaal ballistikada ah sida askarigu uu xusay. mana muuqato in la filayo in la difaaci karo xeryahaasi militariga iyo weerarada Iiraan ay ku qaadayso. dagaalka hadda socda ma aha mid Mareykanku u diyaar garoobay, hadduu dagaalka sii dheeraadana waa kasii xun tahay. sababtaas ayaa keenaysa in darbaaxyooyinka ay la kulmayaan ciidamada Mareykanka sidoo askarigan hadal ku dhigayo ay yihiin kuwo ka yimid agabka iyo saldhigga sida uu qaabaysan yahay oo aan loogu talagelin in marka horeba lagu tashado in cirkan laga soo weerari doono. waa gartay Iiraan maxay tahay sababta ay u beegsanaysaa wadamadan? warbaahinta Mareykanka maxay arrintan ka sheegaysaa? wargeyska la yiraahdo Wall Street Journal ayaa ku waramaya isagoo soo xiganaya saraakiil military oo arrimahan xoogaal ah in gantaalada ballistikada Iiraan weerarka soo qaadayaan askarta lagu diray Jordan saldhigyada militariga joogay in ay ku jireen guri la isku xirxiray oo ay jiifeen. waddanka Kuwaitna kama foga wartilmaameedada. Iiraan waxay sidoo kale beegsataa saldhigyada militariga ee Ciraaq ku yaala sida Erbil xero militari oo ku taala oo ay saraakiil iyo askar ku dishay. waxaana muuqata in diyaaradaha droniska ay yihiin kuwo isqarxinaya oo sida la isaga caabiyo adag tahay. sida laga soo xiganayo lafagurayaasha, weerarkani waxa uu muujinayaa istiraatiijiyada Iiraan ee ku ciqaabaysa wadamada gobolka bariga dhexe ee martigelinaya ciidamada Mareykanka ay tahay siyaasad ku talgal ah, ujeedaduna ay tahay sidii ciidanka Mareykanka gobolka bariga dhexe looga eri lahaa. waa gartay xaaladan marka ka sii daraysa maxaa si gaar ah ugu soo beegay xilligan? maxayse ka macno tahay in xaaladdu iminka cirka ay ku shareeran tahay? weerarada iyo awoodda ay Iiraan u leedahay in ay gantaalo ku beegsato meelo fogfog ayaa u muuqda in ay tahay in xirfadda Iiraan xagga hubka ay isbedelayso, bartilmaameedyadeedana ay sugan yihiin, qiimo weyn ugu fadhiisanayso wadamada gobolka. Iiraan waxay door bidi lahayd in aynan weerarin wadamada dariska ah, waxayna sheegaysaa inay weerarayso oo keliya goobaha saldhigyada militariga Mareykanka ay ku yaalaan loo isticmaalayo dagaal lagu soo qaaday waddanka Iiraan sida laga soo xigtay maxad la fagura arrimaha dagaalka.
Urdun iyo wadamada kale gobolka ku yaala ayaa arrintaasi ku gacan seeraya. Weerarada ayay waxay u tixgelinayaan in uu xadgudub ku yahay madax banaanidooda qarameed iyo qawaaniinta caalamiga ah, khatarna ku yahay xasiloonida gobolka bariga dhexe. laakiin xaqiiqada meesha laga hadlayo waxa weeye wadamadani dhibaato dadban ayaa gaaraysa iyo mid toos ah, inkastoo duqeynta hadda inta badan dhacaysa ay ku kooban tahay kaabayaasha militariga ee wadanka Mareykanka ee wadamadaasi ku yaala. waa gartay waxaan hadda inta aynu kaga gudubnaa warbixinta maxay khibradu ka leedahay wadamadan ku dhacaan inay yiraahdaan Mareykanka saldhigyadiina naga xira ka guura ilaan waxaan ognahay shalay barnaamijyada sii daynay waxa ku jirtay in ciidamada dowladda kacaanka Islaamiga ee Iran ay ugu baaqeen wadamada Bahrain iyo Kuwait shacabkooda in Mareykanka ciidamadiisa ay ka saaraan wadamadooda. dowladuhu ma ku dhacaan arrinkaas inay ku yiraahdaan Mareykanka maxaa imaan kara haddii arrintaasi ay dhacdo? Professor Jeffrey Sachs oo aan khabiira la fagura arrimaha caalamka muddo dheerna ka hadlayay dagaalkan bariga dhexe ka socda iyo Mareykanka, buugaag badanna ka qoray, qaramada midoobana la taliyo oo ah khibrad badanna leh, ayaa waxa uu hadal ku dhigayaa wadamada ay joogaan ciidamada Mareykanka inayna ahayn wadamo madax bannaan. Asigoo hadal ku dhigay wadamadani meel ay wax ka qaban karaan ma joogaan. Cali Larijani inta aan la dilin ka hor booqashadii uu dalalka qaar ku maray uu sheegay, wuxuu yiri ciidamada militariga ee dalalkiina jooga ujeedada u joogaan waxa weeye in Iran lagu soo weeraro. Iran ma u dul qaadanayso, waa ka falcelinaysaa, haddii kale wadankiina u diida. waan ogahay yiri inaan wadankiina u diidi karin, haddaad u diidin karin ogaada yiri inaan duqeynano. dadkii ayaa dhacday hadallada ka soo baxaya wadanka Iran inta badan xanaf ma laha. Ilayeen dadkan dariskeena walaalaheena anagu ma rabna inaan duqeyno, laakiin Mareykanka iyo saldhigyada uu leeyahay nala ka soo weerarayo ma amaan helayaan. wadamadana uma badna in ay khiyaar badan leeyihiin sida hadalka loo dhigayo. waa tahay maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka. daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo beer waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa nabadgelyo.